Rachel Allen Corrie waxay dhalatay qarnigii 20aad sanadkii 1979kii. Waxay ahayd dhaqdhaqaaqe iyo qoraal warbixin oo Mareykan ah. Waxay xubin ka ahayd dhaqdhaqaaqa isbahaysiga caalamiga ah ee Falastiin. Waxayna ka shaqeynaysay guud ahaan dhulka Falastiin. Rachel ayaa halgankeedii soo bilowday iyadoo fasalka 5aad dhigata. Da'deeduna markaasi lagu qiyaasay 10 jir. Ilmahan yar ayaa ka damqatay caruurta kale iyo dadka ku nool dunida saddexaad oo micnaheedu tahay wadamada aan lahayn xarumaha aasaasiga ah, kabashada dhaqaale, saboolnimada sare iyo xasilooni darada dhaqaale. Waxayna sheegtay inay ka damqanayso iyadoo meel munaasabad ah uga faa'iideysanayso dareenkeeda la wadaagtay dunida. Hadalladeedii ayaa ka mid ahaa: I'm here because those people are mostly children. Waxaan halkan u joogaa caruur kale. Waxaan halkan u imid sababtoo ah waan dareemayaa. Waxaan halkan u imid sababtoo ah caruurta kale ee meelaha ku dhibaataysan iyo kumanaanka qof ee gaajadu u dhimata. Waxaan halkan u imid sababtoo ah dadkaasi waxay u badan yihiin caruur. Waa inaan fahamnaa masaakiinta nagu hareeraysan oo aan iska indhatireyno. Waa inaan fahamnaa in dhimashadaani ay tahay mid laga hortagi karo. Waa inaan fahamnaa dadka ka yimid wadamada dunida saddexaad inay u fikiraan, daryeelaan, u dhoola cadeeyaan oo u murugoodaan sideenoo kale. Waa inaan fahamnaa in ayaga anaga oo kale yihiin, annagana iyaga oo kale aan nahay. Riyadaydu waa inaan gaajada joojiyaa sanadka 2000. Riyadaydu waa inaan masaakiinta fursad siiyo. Riyadaydu waa inaan badbaadiyo 40,000 oo qofood oo dhimanaya maalin kasta. Riyadaydu way rumoobi kartaa, wayna rumoobi doontaa haddii aynu dhammaanteenu eegno mustaqbalka oo aynu aragno iftiinka halkaasi ka ifaya. Waxay bilowday dhaqdhaqaaq urur loogu magac daray dhaqdhaqaaqa midnimada caalamiga ah International Solidarity Movement ee xilli dugsiyeedkii Corrie. Gabadhan yar ayaa safar u tagtay Gaza iyadoo ka qayb qaadanaysa soo jeedinta cilmi baarista madaxa bannaan ee kulliyadda sanadkii sare si ay isugu xiraan Olympia iyo Rafah iyo magaalooyin kale. Waxay sidoo kale ku biirtay Independent Study and Mentorship oo loo soo gaabiyo ISM, barashada madaxa bannaan iyo la talinta. Dadaalkani oo looga hortagay falka arxan darada ah ee Israa'iil ku dhaqaaqaysay iyadoo isku dayeysay inay joojiso burburinta inta lagu guda jiray Corrie. Waxay hor istaagtay cagaf gaashaaban oo loo isticmaalayay in lagu burburiyo hantida dhibanayaasha reer Falastiin. Dunida oo dhan ayaa aad ugu xumaatay geerida Corrie iyadoo ku guda jirta ka dhabaynta riyadeedii. Maxay tahay sababta? Yaase loo maxkamadeeyay geerida Corrie? Muuqaalka xiga ayaa kaga bogan doontaan.